kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba waad adduunka ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. Muuqaalkan waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dhanka ciyaaraha oo wargeysyada ka faalooda kubadda cagta ay qorayaan haatan. Saaka wargeysyada bogagga hore waxay ku qorayaan sheekooyin kala duwan. Waxyaabaha aynu ka soo qaadi karnana waxaa ka mid ah Darwin Núñez oo maanta dhammaystiraya heshiiska uu ugu biiraya kooxda Liverpool. Haddii si kale loo dhigana kooxda Reds oo maanta ku dhawaaqaysa saxiixa Darwin Núñez. Waxyaabaha kale oo aan soo qaadi doono waxaa ka mid ah saxiyada waaweyn ee la filaya inay ka dhacaan suuqa kala iibsiga xidigaha ee xagaagan kadib markii kooxda Manchester City ay shala xaqiijisay saxiixa ninka la yiraahdo Erling Haaland, Frenkie de Jong, Romelu Lukaku, Gabriel Jesus iyo saxiiyo kale ayaa la filayaa inay ka dhacaan suuqa kala iibsiga xidigaha ee xagaagan. Kooxda kubadda cagta Manchester City-na waxay dalab miiska u saartay ciyaaryahan kale kadib markii ay shala xaqiijisay saxiixa Erling Haaland. Sheekooyinkaas ayaynu eegi doonaa daqiiqadaha soo aadan. Balse intaanan sii gudagelin, saaxiibada hore noola joogay waxaan ka dalbanaynaa inay like inoo saaraan muuqaalkan, kuwa nagu cusubna waxaan leenahay soo dhawaada oo subscribe inoo saara barteena YouTube-ka. Mahadsanidin. Aynu ku bilownay waxaan markaan soo gudbinaynaa xidigaha markaa la filayo inay saxiixyadoodu dhacaan suuqa kala iibsiga xidigaha ee xagaagan. Ilaa 7 ciyaaryahan ayaa la filayaa inay kooxahooda bedeshaan oo ay horboodayaan Frenkie de Jong, Romelu Lukaku, Gabriel Jesus iyo kuwa kale. Suuqa kala iibsiga xidigaha ee xagaaga ayaa si rasmi ah u furmay toddobaadkii la soo dhaafay. Xidiga badan oo ka ciyaara qaaradda Yurub ayaana rajeynaya in ay u dhaqaaqaan kooxo kale oo haatan lala xiriirinayo. Suuqa kala iibsiga xidigaha ee xagaagan waxaa la filayaa in xidiga waaweyni ay ka wareegaan kooxahooda kuna biiraan kooxo cusub. Laacibiinta la filayo oo markaa suuqa kala iibsiga xidigaha ee xagaagan inay ka dhacaan saxiixyadooda la rajeynayo waxaa ka mid ah Frenkie de Jong, Romelu Lukaku iyo Gabriel Jesus, kuwaasoo ah kuwa ugu magaca weyn. Sidoo kale Christian Eriksen ayaa isagana lala xiriirinayaa inuu bedesho kooxdiisa isagoo dib ugu laaban kara kooxdiisii hore ee Tottenham. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa ugu dambeysay shalayto oo xaqiijisay xidiga magaca weyn ee Erling Haaland, kaasoo ay gacanta ku soo dhigeen. Haddana waxaa la filayaa in saxiiyo kale ay sii daba socdaan. Christian Eriksen ayaa markaasi la filayaa in midkood uu ku biiro kooxaha Tottenham Hotspur ama Manchester United. Xidigan ayaa isaga tegi kara kooxdiisa Brentford oo uu ku soo biiray bishii Janaayo, waxaana uu dib ugu laaban karaa kooxdiisii hore ee Tottenham oo uu muddo u soo ciyaaray. Sidoo kale waxa uu xiise ka helayaa Manchester United. Labadaas kooxood midkood ayuuna ku biiri karaa xidiga xulka qaranka Denmark ee Christian Eriksen, kaasoo u muuqda inuu ku sii nagaanayo horyaalka Premier League Ingiriiska. Saxiixa kale ee la sugaya inuu suuqa xagaagan ka dhaco waa ninka la yiraahdo Frenkie de Jong oo markaa ku soo wajahan Manchester United. Garoonka Old Trafford ayuu caga dhigan karaa isagoo ka soo dhaqaaqaya kooxda kubadda cagta Barcelona. Macalinka cusub ee garoonka Old Trafford Erik ten Hag ayaa doonaya in uu dib ula midoobo xidigii hore ee qadka dhexe ee naadiga Ajax ay ka soo wada shaqeeyeen. De Jong ayaa 3 sanadood ee ugu dambeeyay ku qaatay kooxda kubadda cagta Barcelona kadib markii ay kooxda Ajax uga soo qaateen 70 milyan oo ganiga sterlinka ah. Macalin Erik ten Hag ayaana doonaya in Hollandeeskan uu ka yeelo saxiixiisa ugu horeeya iyadoo 25 sano jirkan uu ku soo biiri karo garoonka Old Trafford. Saxiixa kale ee la sugayo waa Robert Lewandowski, kaasoo ku biiri kara midkood kooxaha Barcelona ama PSG. Xidiga xulka qaranka Poland ayaa isaga tegaya kooxda Bayern Munich halkaasoo uu ku dhaliyay 344 gool 375 kulan oo uu ka ciyaaray. Waxaa lala xiriirinayaa kooxda kubadda cagta Barcelona oo aad ugu dhow saxiixiisa, laakiin wargeyska L'Equipe ee ka soo baxa Faransiiska waxa uu warinayaa in kooxda PSG sidoo kale ay ka dhigatay Lewandowski bartilmaameedkooda sare iyo weeraryahanka ay suuqa ka doonayaan. Robert Lewandowski ayaana ku biiraya midkood kooxaha Barcelona ama PSG iyadoo loo badinayo inuu aadi doono garoonka Camp Nou. Suuqa kala iibsiga xidigaha ee xagaagan waxaa sidoo kale la filayaa in Romelu Lukaku uu ka tago garoonka Stamford Bridge ee galbeedka London, waxaana loo badinayaa inuu dib ugu laaban doono kooxdiisii hore ee Inter Milan kadib markii uu Chelsea ugu biiray lacag rikoor ah oo dhan 97.5 milyan oo ganiga sterlinka ah, isla markaana uu dib ugu soo laabtay garoonka Stamford Bridge bishii Agoosto ee la soo dhaafay. Lukaku waxa uu doonayaa in wax ka yar sanad kadib uu markaasi ka dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Chelsea, isla markaana uu dib ugu laabto waddanka Talyaaniga iyo kooxda Inter Milan. Saxiixa kale ee la sugayo inuu suuqa xagaagan ka dhaco waa Yuri Tielemans oo markaa ku biiri kara kooxda kubadda cagta Arsenal. Kooxo dhowr ah ayaa doonaya saxiixa xidigan, laakiin Arsenal ayaa noqon karta
kooxda gacanta kusoo dhigi karta xidiga kooxda Leicester City ee Yuri Tielemans. 25 sano jirkan qadka dhexe ee ka tirsan kooxda dawacooyinka ayaa markaasi loo badinayaa inuu aadi doono Gunners, inkastoo uu xiise ka helayo kooxaha Tottenham iyo Real Madrid. dhinaca kalena saxiixyada kale ee la filayay inay dhacaan waxaa markaasi ka mid ah Gabriel Jesus oo midkood ku biiri kara kooxaha reer London ee Arsenal iyo Chelsea. Manchester City ayaa xaqiijisay inay 51 milyan oo ganiga sterlinka ah kusoo qaadatay Erling Haaland, taasoo markaasi mugdi gelinaysa mustaqbalkii garoonka Etihad ee ciyaaryahan Gabriel Jesus. kooxaha reer London ee Arsenal iyo Chelsea ayaa la fahamsan yahay inay xiiseynayaan xidigan xulka qaranka Brazil. midkood kooxahaas ayuuna ku biiri karaa iyadoo loo badinayo inuu u dhaqaaqi doono kooxda Gunners oo markaasi lumisay Alexander Lacazette iyo sidoo kale Pierre-Emerick Aubameyang, waxaana uu ka ciyaari karaa xidigan garab weerar iyo sidoo kale weerarka tooska ah. saxiixyada kale ee la filayo waxaa markaasi ka mid ah Raheem Sterling oo isagu markaa u dhaqaaqi kara naadiga Chelsea. kaliya Gabriel Jesus ma aha ciyaaryahanka ka tagaya kooxda Manchester City ee diiradda u saaran Chelsea, sidoo kale waxaa lala xiriirinayaa kooxda Blue ciyaaryahanka asal Jamaicanka ah ee Sterling, kaasoo markaa bartilmaameed u noqday kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London. wargeyska The Sun ee kasoo baxay Ingiriiska ayaana warinaya in Chelsea ay xiiseynayso xidiga xulka qaranka England, isla markaana ay doonayaan inay xagaagan 60 milyan oo ganiga sterlinka ah kaga soo qaataan Manchester City. markana aynu eegno wararka Darwin Núñez iyo kooxda kubadda cagta Liverpool. Darwin Núñez ayaa markaa dhammaystiri kara ku biiristiisa kooxda kubadda cagta Liverpool, isagoo markaasi maanta wax waliba dhammaystiraya. haddii ay ahaan lahayd heshiiska inuu qalinka ku duugo iyo in markaa uu ka gudbo tijaabooyinka caafimaadka. Darwin Núñez ayaa maanta ka gudbaya tijaabada caafimaadka ee uu u marayo kooxda kubadda cagta ee Liverpool, waxaana uu ugu dhaqaaqayaa kooxda Liverpool adduun dhan 64.1 milyan oo ganiga sterlinka ah, waxaana uu kasoo dhaqaaqayaa naadiga Benfica isagoo qalinka ugu duugaya heshiis 6 sanadood ah kooxda ka arrimisa garoonka Anfield. 22 sano jirkan ayaa soo gaaray wadanka Ingiriiska Isniintii shalay, waxaana uu qaatay qaybtii ugu horeysay ee tijaabada caafimaadka, iyadoo maanta la filayo in uu dhammaystiro baaritaanka caafimaadka. wargeyska Daily Mail ee kasoo baxay Ingiriiska ayaa warinaya in wax waliba ay isku dhamaadeen, isla markaana uu ciyaaryahanka la yiraahdo Darwin Núñez noqon doono maanta xidig kooxda kubadda cagta ee Liverpool ah oo Reds ay markaasi rasmi u shaacin doonto. weeraryahankan la yiraahdo Núñez waxaa markaa doonayay kooxa ay ku jiraan Manchester United, Liverpool iyo sidoo kale Newcastle United, balse waxa uu doortay kooxda kubadda cagta Reds oo markaa lacag rikoorka kooxdeeda ah ku qaadatay ciyaaryahan Núñez. weeraryahankan reer Uruguay ayay kula wareegayaan 85 milyan weeraryahankan reer Uruguay ayay guud ahaan kula wareegayaan Liverpool 85 milyan oo geni, iyadoo markaa si toos u bixin doonto marka ugu horeysa 64 milyan oo geni, waxaana raaci doona 12.8 milyan oo ku xirnaan doonto bandhiga ciyaaryahanka, iyadoo ay dib ka sii raaci doonto lacag kale oo dhan 8.5 milyan oo ganiga sterlinka ah. kooxda Jurgen Klopp ayaana la filayaa in ay xaqiijiyaan maanta saxiixa Darwin Núñez haddii aysan jirin xaalad caafimaad. horeyna ciyaaryahankan ayaa heshiiska shakhsiga ah ula gaaray kooxda, iyadoo kooxdiisii hore ee Benfica ay shalay xaqiijisay in ciyaaryahanka la yiraahdo Núñez uu markaasi ku biirayo kooxda kubadda cagta Liverpool. keliyana shaacintiisa ayaa harsan, maanta ayaana la shaacin doonaa sida wargeysyadu ay tilmaamayaan, isagoo qalinka ku duugi doona qandaraas 6 sanadood ah oo uu kusii joogi doono garoonka Anfield. haddii maanta markaasi si rasmi ah ay Liverpool ugu dhawaaqday saxiixiisa, waxaa markaasi uu kooxda inteeda kale si rasmi ah ugu soo biiri doonaa 1 bisha July ee inagu soo aadan, waxaana sanadkii uu xidigani kooxda Reds ka heli doonaa 6 milyan oo ganiga sterlinka ah. Virgil van Dijk oo ay Liverpool ku soo qaadatay 75 milyan oo ganiga sterlinka ah ayaa haysta rikoorka ciyaaryahanka ugu qaalisan Liverpool, laakiin Darwin Núñez ayaa dhaafi doona isagoo markaa noqon doona maanta ciyaaryahanka ugu qaalisan kooxda kubadda cagta Liverpool haddii markaa heshiiskiisa ay ku dhawaaqaan. 34 gool ayuu soo dhaliyay ciyaaryahankan dilaaga ah, 41 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii hore. 6 ka mid ah goolashaasi waxa uu ka dhaliyay kal ciyaareedkii hore tartanka Champions League, iyadoo 2 ka mid ah goolasha Champions League uu ka dhaliyana uu ugu shubay kooxdiisa cusub ee Liverpool heerkii 8 dhamaadkii ee tartankaasi. ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa in ay dalab rasmi ah miiska u saartay kooxda kubadda cagta Leeds United oo ay ka doonayaan inay xagaagan kala soo wareegaan ciyaaryahanka la yiraahdo Calvin Phillips.
kadib markii ay si rasmi ah usoo bandhigeen shalay saxiixooda cusub ee Erling Haaland kaasoo markaa yimid garoonka Etihad Stadium. Pep Guardiola ayaa hadda markaasi u dhaqaaqaya beddelka Fernandinho oo uu arko Calvin Phillips. Warsidaha la yiraahdo Football Insider ayaa warinaya in kooxda xafidanaysa horyaalka Premier League Ingiriiska ay Phillips ka dhigatay bartilmaameedkooda ugu sarreeya ee xagaagan. Inkastoo tartan ku aadan saxiixa 26 sano jirkan Phillips ay kala kulmayaan kooxaha Manchester United, Newcastle United, Aston Villa iyo West Ham United oo dhankooda ka doonaya. Wararku waxay intaa ku darayaan in kooxda kubadda cagta ee lagu naynaaso muwaadiniinta ay dalabkii ugu horreeyay ka gudbinaysa ciyaaryahan Phillips kaasoo markaa lagu heli karo lacag lagu qiyaasayo 50 milyan oo geniga sterlinka ah xagaagan. Manchester City ayaa la fahamsan yahay inay u kaba gashan doonto Calvin Phillips si ay markaa ugu lamaaniso Rodri maadaama uu kooxda ka tagay Fernandinho. 19 kulan ayuu u saftay Phillips xulkiisa qaranka England, waxaana kooxda caruurnimadiisa uu u dhaliyay 234 gool tan iyo markii uu kulankiisii ugu horreeyay u saftay sanadkii 2015, waxaana 2 sanadood uu uga harsan yahay qandaraaskiisa garoonka Allen Road. waad ku mahadsantahay inaad nala soo gaartay ilaa gabagabada muuqaalkeena. waxaan ku xusuusinaynaa inaad like inoo saarto muuqaalkan. waxaan ahay Haarun Yuusuf Qasaare. intaan muuqaal kale dib ugu kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.